إنا لله وإنا إليه راجعون. الله نحرسته وحا أسقرن لوgu sameeyay magaalada Boocame ugaas Cabdilaahi Ciise oo kamid ismada dhaqanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Sool waxaana ka qayb galay aaska marxuumkaas wafdi wasiirada oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda dibadejinta Cali Saciid Reegal wasiiru dawlaha beeraha Cabdiwaahid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan wasiiru dawlaha warfaafinta Maxamed Boocame iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda dibadejinta iyadoona halkaas ay kumanaan dadweynaha ay ku tukadeen labada ragcadood ee salaada jinaasada aaskan oo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u tiro badan madaxda dhaqanka dhulka Soomaalidu degto oo dhan boqorro iyo marti sharaf kale iyadoona halkaas wasiiradu ay u tacsiyeeyeen eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuum ugaas Cabdilaahi Ciise Nuur oo kamid ahaa madaxda dhaqanka gobolada Sool Sanaag iyo Buuhoodle oo uu xijaabtay oo intana waan joobay ilxigta inna lahu wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin dhaaqatul maut waa la wada dhimanayaa si baa dhamaatay laakiin waxaan la wada qirayaa inuu nin ooyah oo ism wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo dhaqan wanaagsan oo ismnimada si fiican ugu shaqeeya inuu ahaa ilaahay dadka kan samir iyo iimaan ka siiyo dhammaan eheladiisi dadkiisa inta uu ahaa ugaaska qaraabadiisa iyo inta kalaba ahwayna ilaahi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ugaas Cabdilaahi Ciise Nuur ugaaskii guud ee beelaha ugaasyood ilaahay samir iyo iimaan hay naga siiyo isagana janno firdawsa hageey dhammaan ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii ka baxay iyo ummadda Soomaaliland dal iyo dibad meel ay ku nooshayba uga tacsiyadeynaa waxaan walaalnahay samir iyo iimaan ilaahay siiyo isagana albaabada jannadooda ilaahay hoo ballaqo waxa nin nabadda jecel waxa nin nabadeed waxa nin wanaagsan waxa nin diinta ku wanaagsan waxa nin ehlul cibaada bismillahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay uu naxariisto